saaka roodkii waqti 12 la joogo ayaa ninkii gudoomiyihii hore ahaa meesha joogay ciidan yar oo taabacsan baa nimankii weeraray marka saasay wax u dhaceen. waan kartay dabcan xildhibaan inta badan Facebook waxa si weyn loogu daabacayay qaar badan oo kamid ah mas'uuliyiintii hore ee maamulkaasi Koonfur Galbeed ay si weyn markaas uga hadlayeen xaaladda ka taagan deegaanadaasi iyadoo si weyn markan maamulka hadda waqtigiisa halkaasi ka sii dhamaanaya dabcan ay si weyn dhaleeceen ugu jeedinayeen muddana halkaasi isku horfadhiyeen maxay tahay sababta keenayso waqtigan iyadoo kala guur lagu jiro in markan dagaal uu ka qarxo qasax dheere iyo deegaanada kale ku gaadaan qasax dheerta ayaa ogtahay saaxo madiinkan dambe waxa waay wax maamul kama jirin maamul fadhiid ah waqtigiisa dhamaaday oo wax uu yahay baan logeen cabasho badan ay ka soo muujiyeen dadka shacabka ah meesha joogay iyo ummadda oo dhan ayaa ka jiray marka hadee dadka meesha joogay iyo waxay u dulqaadan waayeen dulgiisa iyo dhibaatadiisa u dulqaadan waayeen marka heeriyada saareed iska dulqaadeen marka taas waan ku bogaadinaynaa. waan gartay maxay idinka qorshaysan waqtigan marka la joogo waxaan loo qorshaysan qasax dheer inay nabad ay ahaato dadka nabad inay ku noolaadaan inay horumar ay hesho in nidaamka dawliga iyo sistamka ee wadanka ka jira si fiican uu gaaro ayaan ka rajaynaynaa ilaahay idinkiisa ugu dhaqsiyaha badan waxa waaye waan gaari doonaa waxaan u sameyn doonaa maamul fiican iyo wix alla wixii ay u baahdanaayeen inay helaan aan ka shaqeynaa ilaahay idinkiisa soo kama qurux badnaan lahayn xilligan inta dagaal la qaadi lahaa wax walba in waan iyo si hoose loo xalliyo maya dagaal ma baqaado anaga dagaalka ninka meesha joogo oo waqtigiisa iska dhamaaday oo meesha iska sii joogo oo wuxuu yahay baan looyeen baa dagaalka qaaday asaga har iyo habeen baa dadka dhibaateeyo wax dagaal ku soo qaaday malaha asaga soo qaaday haddana asaga ku jabay haddana uu ka xararay magaalada waa nabadgelyo. waan gartay bal dagaalka maanta halkaasi ka dhacay ma jiraan wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay maya wax khasaare kuma jiraan hal qof oo ciidamada ka tirsanaa oo kuwa ciidamada asaga uu soo adeegsaday oo soo qalday ka tirsanaa ayaa dhaawac fudud ka soo gaaray asagana waa la dabiibaya hadda waxaa jooga isbitaal ku yaala madaxa qadirka dhakhaatiirtooda ayaa dabiibaya oo hadda waa fiican yahay xaaladiisa aad ay u ladan yahay. waan gartay mar aan sidaas u fogeyn xilli wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed uu hadlayay uu si weyn u tilmaamay in siyaasiyiinta kaga aragtida duwan dabcan ee ka hadla meediyaha kaliya in waxay sheegaan hadal kaliya yahay aysan wax ficil ah la jirin maxaad ugu jawaabaysan arrintaas maadaama dad horey mas'uuliin ugu soo noqday deegaanadaasi aatiin markana banaan joog aad ka tihiin siyaasadda maamulkaasi ninka asaga wax ka hadlay kulli asaga u taala wax anaga aan garan karna maaha wax anaga noqoseena ma laha dalka dad ka dhaxeeya Koonfur Galbeed waa la wada leeyahay hal qof kaligiis jeedkiisa kuma jiri karto marka anaga waxa ka shaqeynaa Koonfur Galbeed la wada leeyahay cadaalad oo istinaan ah oo rabitaanka shacabka ka shaqeynaysa in hala ka shaqeynaa anaga waan ku dadaalina waan heli doonaa ilaahay idinkiisa sida ugu dhaqsiyaha badan. waan gartay bal xildhibaanada kale markan federaalka ku metelaya maamulkaasi dabcan ka soo jeeda dhowr mar ayaa la arkay qudhooda iyagoo si weyn markaas ugu soo horjeeda xukunka maamulkaasi ma isku xirantiin xildhibaanadaasi waa isku warheena anagoo dhan waa isku wada haynaa reer Koonfur Galbeed isku wada haynaa marka dhamaantan waa isku warheena qofan oo maanta anaga aan isku warheena ma jiro dhamaantan waa isku warheena. waan gartay maxay tahay marka xalka guud ee markan Koonfur Galbeed ay wajihi karto maadaama iyadoo lagu jiro bishii barkeysanayd Ramadaan qalalaasadeedu ay aad u xoogan tahay muddooyinkan dambe warnay horta xabad xal ma noqoto xalka wuxuu ku jiraa hoggaanka Koonfur Galbeed ku jira asaga gacantiisa ku jira asaga baasha dhaxdooda laga rabaa Koonfur Galbeed la wada leeyahay la wada Koonfur Galbeed xor iyo xalaal doorasho ay ka dhacaysan la rabaa marka hadii arrinta iyada ay ogolaadaan anaga waxba kama qabno laakiin Koonfur Galbeed qof jeedkiisa ku jirta marna ma yeelina marna ma dul qaadanayno. waan gartay bal mar aan sidaas u fogeyn baydhabo gudaheed waxa isku dagaaleen ciidamada iyo waliba bilowga ciidamadan kale iyaguna markaas xaq u dirka la magac baxay oo hadda banaanka ka jooga wixii ka dhacay waa looga dad badan oo ku dhamaaday oo ku rafaaday halkaasi iyadoo taas laga baaqsan karayo markan soo kama qurux badnaan lahayn in dhaqanka intay wada fariistaan ay ka wada hadlaan sidii xal lagu gaari lahaa maadaama hogaamiyaha halkaasi joogo dabcan ay si weyn u dhaleeceynayeen xitaa suldaameyaasha qaarkood. maxamed anaga Koonfur Galbeed xabad uma rabno dagaal uma rabno xal baan rabnaa xal in la helo xabad wiil baa ku dhinto wiil kuma dhasho wixii baydhabo ka dhacayna aad aga xunahay dad dambe inay dhacaan ma rabno waxaan ka shaqeynaynaa sidii wadanka nabad ku noqon lahaa gacmaha isku qabsan lahaa doorasho xor iyo xalaal ay ka dhici lahayd dadka waxa waaye waxba ka wada dhaxay wixii ka wada dhaxay in dhaxda la soo dhigo
taasa ka shaqeynayna dagaal ma rabno anaga mana ka shaqeynayno mana doonayno in hal wiil naga dhintana mar dadkaas waa dad walaalo ah waa dad ehel waa dad maanta aan kala tagi karin waaye marka cid kasta oo dagaal ka shaqeynaysa waxaan leenahay dagaalka la joojiyo nabad hal wada qaato gacmaha hal iskabsado nimanka hadda hoggaanka hayo meesha joogan waxaan ugu baaqaynaa inay bahasha dhaxda ay dhigaan dadkan isku soo dhaweeyaan rabitaanka shacabkana laga wada shaqeeyo taasoo kula dardaarmaya fariintaada ugu dambeeyda guud adres maxay tahay guud ahaan waxaan baaq u dirayaa shacabka ku nool iyo ciidamada xaq u dirka degmada qasax dheere waa meel iska dhibaataysan waaye dhowr iyo 10 sano go'doon ku jirtay waaye inay nabad ay ka shaqeeyaan inay amniga ay ka shaqeeyaan shacabka masaakiintana waxa waaye wixii loo awoodi in lagu taro in bishooda lagu dagaalamin ninkaas burcadka ah oo gudoomiye wala meesha joogana waa inay amxaarada meesha ku jiraan la sheegay inay meesha ka sii fiijiyaan iska sii fogeeyaan wadankoodana nabad iyo caafimaad ay ku joogaan insha Allah ilaahay idinkiisa anagana waa u qayl dhaaminaynaa waxa liixi karaanka anaga waxba kala ma harayno waan har iyo habeen waa garab taaganahay waana mid jirna marka waxaan kula dardaarmayaa inay gacmaha isqabsadaan oo way ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka ay ka shaqeystaan intaasaan kula dardaarmaya saaxiib aabbaha kula hadlaya wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Soomaali Suudaneys waliba waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay 7 sano isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya laga soo bilaabo 2019 ilaa hadda Soomaali Suudaneys Hospital saaxiibka bulshada SSH biyaha Dazani dadka waa u xal nolosha waa u dan waa ku diyaar biyaha Dazani meel kasta oo dunida ka tagto dalbo dhalashan 100 oo ml oo Coca-Cola kuna cab 4 senti oo kaliya ku raaxayso dhadhanka macaan Coca-Cola ka dhiga dooqaaga koowaad